marka la soo hadal qaado neenaasya xidigaha kubadda cagta ay leeyihiin isagu waxa uu kala baxay midda ugu shidan oo ah badbaadiye waana siday ugu yeeraan taageerayaasha Real Madrid waxaana uu ku mataystay awoodiisa iyo geesinimadiisa waa difaac rikooradiisa goolineed ee la tartaman weeraryahanada qaarkoodna waa uu ka saramaray isagu waa Sergio Ramos halyeeyga go'aamiye kulamada waaweyn iyo gooldhaliyaha madaxiisa aan la celin karin martideena maanta waa Sergio Ramos kaasi oo noloshiisa ay ku duwan yihiin sira badan oo aan horey loo kashifin waa maxay xiriirka kala dhaxeeya dawladda Israa'iil ama Yuhuudda rikoorka xun ee u diiwaan gashan hanjabaadii ay u soo jeediyeen dadka reer Masar sababtii uu hawada uga saaray WhatsApp-kiisa iyo sira kale oo aadan ka ogeyn El Capitano Sergio Ramos haddii aad doonaysid inaad wax badan ka ogaato Sergio Ramos fadlan inala daawo muuqaalkan intaanan guda gelinna waxaan kaa codsanaynaa inaad like nagu dhiirigeliso una sheer garayso asxaabtaada si aan u soo gudbino muuqaalo xiiso leh oo noocan oo kale ah Sergio Ramos waa hogaamiyaha difaaca Madrid iyo xulka qaranka dalka Spain waxa uu ku dhashay deegaanka Camas Sevilla maalinkii 3 ee bisha Maarso sanadii 1986 waalidkiisa waxay ahaayeen kuwa qani ah oo laga tilmaamo deegaankooda aabihiisa waa Jose Maria halka hooyadiisu ay tahay Bihi waxaana la dhashay 2 walaalo ishqigiisa kubadda cagta waxa uu soo bilaabay markii uu socodka baranayay waana mid keentay waalidkiisa ay geeyaan xarunta daayirada kooxda Sevilla dadaal dheer kadib iyo guulo badan uu la gaaray daayirta kooxdaasi waxaa sanadii 2004 lagu soo diray kooxda waaweyn ee Sevilla mana uusan ka weynin 17 sano sanadkiisii ugu horeeyay waxa uu si weyn ula qabsaday kooxda Sevilla waxaana uu ka caawiyay sanadka xigay u soo baxaan tartanka Europe League kadib goolal uu ku talay shabaqyada kooxaha Real Madrid iyo Deportivo La Coruña awoodiisa ayaana ka dhigtay in isagoo 19 jir ah laga waco xulka qaranka dalka Spain qaybtiisa sare bishii Maarso sanadii 2005 isla sanadkaasi bishii November ay Real Madrid ku soo iibsatay 27 milyan oo dollarka Mareykanka ah goolkiisii ugu horeeyana waxa uu dhaliyay kooxda Real Madrid kulan ay ka horjeedeen kooxda Lyon kana tirsanaa tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League Sergio Ramos haddii uu yahay mid aan jilicsanayn marka uu garoonka dhexdiisa ku jiro taasi kama reebeen inuu u jilicsan yahay dhanka dumarka iyo hasaawaha dhankiisana waxaa ku badan xiriirada tiro gabdha ayuu xiriiro la sameeyay kuwa uu ka mid ah gabdhaha ugu caansan waddanka Spain laakiin ugu dambeyn waxay isguursadeen gabadha wariyaha ah ee la yiraahdo Pilar Rubio waana hooyada carruurtiisa miyaad hore u maqashay in Sergio Ramos mid ka mid ah ninaasihiisa ay tahay ninkii saf sharafeedka kaasi oo ku qasbay Barcelona inay saf u galaan kooxda cadawgooda ah ee Real Madrid kulankii lagu xaqiijinayay in Barcelona ay saf u gasho dabcan ka horreeyay kii Barcelona ay Los Blancos u jaaday kooxda Osasuna taasi oo ilaa ay dhamaadkii diiday in gool laga dhaliyo balse Sergio Ramos ayaa kubadda si weyn ula soo xawaareeyay caawiyana goolka Real Madrid ku xaqiijisay in Barcelona ay waajib ku tahay inay saf sharafeed u sameeyaan kooxda cadcadka inkastoo xilli ciyaareedii la soo dhaafay ay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona iska dhiga tiraan inay saf sharafeed isku galaan labadooduba marka la eego cilaaqadiisa kala dhaxaysa Yuhuudda waa mid weyn ninkan kulan ay Spain la qaadanaysay Israa'iil isreebkii koobkii adduunyada Ramos ayaa gurigiisa ku booqday qoys askari Israa'iili ah waxaana barta Twitterka aad loogu hadalhayay isagoo kor u haya wiilka uu dhalay askarigaasi oo loo bixiyay Ramos sidoo kale sawirro baraha bulshada si weyn loogu faafiyay ayaa tilmaamaya sida uu ninka reer Spain u qadariyo dadka reer Israa'iil waxaana sawirro laga qaaday isagoo kor u haya xidigta Daawud xitaa waxaa jirkiisa ku taala shaabad ka turjumaysa astaanta reer Israa'iil taasi oo keentay in dadka qaar ay aaminaan in Sergio Ramos uu yahay Yahuudi inkastoo noloshiisa khaaska ah marka la eego uu yahay Masiixi aaminsan diinta Kaatooliga balse aad u jecel shaabadaha jirkiisa Sergio Ramos inkastoo uu difaac yahay balse marmarka qaar kaliya kuma tilmaami karto difaac ee waa inaad ugu yeersaa weeraryahan waxa uu leeyahay rikoor goolalineed oo cajiib ah waxa uu horyaalka Spain kaga gool badan yahay halyeeye waaweyn sida macalinka kooxdiisa Zinedine Zidane Ronaldinho Andres Iniesta iyo halyeeye kale oo horyaalkaasi soo maray marka la eego goolashiisa guudna waxa uu ka hormarayaa halyeeye waaweyn kuwaas oo qadka dhexe iyo weerarka ka ciyaari jiray kubaal Sergio Ramos ma jirto erey lagu qeexi karo oo ka turjumaya awoodiisa kubadda cagta
waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso sababta ay ugu baxdeen ee Nasto caanka ku yahay ee badbaadiyey. tusaalaha ugu weyn waa in goolashiisa ay ka mid ahaayeen goolo lagu go'aamiyo koobab, weliba uu ansixiyey waqtiyada dhimashada sida goolkii Sevilla ee Superkaabka dalka Spain iyo goolkii uu ka dhaliyay kooxda Atletico Madrid finalkii tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League markaas oo ay Los Blancos qaaday markoodii 10aad. sidoo kale lama iloobi karo labadii gool ee isxigay uu ku talay shabaqa kooxda Bayern Munich si uu Real Madrid ugu gol xaaro inay u sii gudubto qaybaha dambe ee tartanka Champions League. haddii uu ku wanaagsan yahay inuu gool dhaliyo, sidoo kale waxa uu ku xildheer yahay sida loo qaato calaamadaha casaanka oo aad mooday inuu walaal yahay iyo calaamada jaalaha ah oo agtiisa aan waxba ka ahayn. marka loo fiiriyo rikoorada uu ka haystana waa mid qaas ah marka la joogo horyaalka Spain. dadka reer Masar ayaa Sergio Ramos ugu goodiyay inay dili doonaan kadib dhaawacii halista ahaa ee uu gaarsiiyey Mohamed Salah finalkii tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League 2018, taasi oo keentay in Salah uu dhaawac ku ciyaaro dhacdadii Mundial ee lagu qabtay dalqabowga Russia 2018. kumanaan dadka reer Masar ah ayaa helay lambarka WhatsApp-ka Ramos, waxaanay u direen kumanaan fariimahan jabaad ah, waxaana uu ku qasbanaaday Sergio Ramos in hawada uu ka saaro bartiisa WhatsApp-ka. marka la eego tayadiisa, laga yaabay inaad adigu la yaaban tahay difaacashada waalan iyo siduu u wajaho kuwa ka soo horjeeda. haddana dhanka kale waa mid ku wanaagsan garaacidda muusiga iyo gitaarka, kana soo saara dhawaqa midka ugu romantiksan ee qof uu alifi karo. Sergio Ramos waa kabtanka kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo xulka qaranka dalka Spain. inkastoo da'diisu ay kor u socoto, haddana uma muuqdo mid da'du ay ka adkaan karto oo weli waxa uu u muuqdaa wiil yar oo ku wanaagsan fariisuulinta kubadda cagta. waa difaaca ugu tayada fiicnaa 10kii sano ee la soo dhaafay guud ahaan kubadda cagta caalamka. waxa uu ku guuleystay koobab waaweyn oo aan xisaab lahayn, sida 3 jeer oo xiriira tartanka Champions League 2010kii uu qaaradda Afrika ku qaaday koobkii adduunyada markii ay finalka ka badiyeen xulka qaranka dalka Holland, iyo 2 jeer oo uu kor u qaaday koobka qaramada qaaradda cajuusada ah ee Yurub. intaan kaliya ma ahan taariikhda Sergio Ramos, balse waynu soo koobnay. haddii aad daawatay ilaa iyo dhamaadka, maxaa ku xiiso geliyay oo ku jira warbixintan? xidigeesa jeceshahay in markii xiga aan soo gudbiyo. waxaan ku xasuusinaynaa dad muuqaalkan daawatay inaad asxaabtaada u sheer garayso oo aad muuqaalka like saarto haddii aad hilmaamtay. magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nur Shaafinho. aad iyo aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.